بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ku jirnaa taxanaheeni barashadan baranayna website lagu sameeyo PHP. hal khaladban ama hal shayban ilowna maantii dhaweyd ama cashirkan kii ka horeeyay markaan soo sameeynay kaasoo ah inaan soo qaadno qoraalkeena halkan hadda inoo yaala hal cidin igu keenaya qoraalkaas iminka page markuu halkaa yaalo banaanka ka jiro if sidka uu ka jiro banaankiisa ka jiro hal cilad buu inoo keenaya ciladaas oo ah haddii iminkaan saasaan ka dhigno wuxuu inoo keenaya ciladaas oo ah uu sheegayo undefined index pagekaas wuxuu leeyahay ma define garaysnaa. taas aan markaa uga baxno waxaanu sameynaynaa keliya qeybteena san soo qaadaynaa kuudkeena halkaasaan dhex dhigaynaa bas intaas un weyba gebigeeduba. haddaan dub soo refresh garayno waxaad arkaysaa markaa inay sidii saxda ahayd u shaqeynayso. qodobka labaadaan sameynay waxa weeyaan website-keeni waxaanu ka dhigaynaa multi language baan ka dhigaynaa. file cusub baan soo sameeyey la dhahdo info iyo file cusub oo la dhahdo lang/ir oo carabigan ugu talagalnay iyo mid ingiriisigan ugu talagalnay. saddexdaa markaan soo sameynay halkan kale waxaanu soo sameynay qaybta section waxaan tegaynaa qaybta la yidhaahdo assetska css waxaanu sameynay faylasha halka inoo yaala ayaanu kala habeynay. waxaan ku talinay left to right waa saddexdaa hore, kuwana waa right to left waxaa loo isticmaalayaa faylasha carabiga loo isticmaalayaa, left to rightna waxaa loo isticmaalayaa faylasha latiniga loo isticmaalaya. wixiina waa css weeyaan. haddaanu tagno kala dhada info wax kale kumaanan sameyn, isaga waxaan kusoo sameynay define garaynay db host iyo db user, db pass iyo db name. xaggana messagekan kusii sameynayna waan sii wadayna isaga insha allahu tacaala. waxaa kale aan soo sameynay fileka la yidhaahdo language arabic oo markaa waxaan u sameynay array langaan u bixinay array weeyaan dir oo valuegiisu noqonayo right to left oo markuu carabi yahay, markuu latini yahayna wuxuu noqonayaa left to right. saasaan kusii wadaynaa qolo walba waxeeda aan usii sameynaynaa key walba value baan usiinaynaa. add page idaafa safxa jadiida, show pages idahaar kulli kamil safaxaad. qaabkaasoo kale aan ku sameynaynaa. waan tegaynaa kan la yidhaahdo language english ayaan isna tegaynaa. u fiirso isna intii oo kale oo laakiin ingiriisi aan sameynay. kuwii hore carabi ahaayeen keygii hore valuegii hore valuegana waxaad arkaysa inay yihiin latini. waan kuusoo upload garaynaya insha allahu tacaala halkaad download garaysatid kadibna u fiirso qaabkaan u sameynay oo practice garee. haddii wax kugu adkaadaana messageka ama columnka inoogu soo dar ama whatsappka ama wixii aad heli karaysid baa informationka kusoo gudbin karaysid sanoo kaga caawino. waxaanu tagnay header template baan tagnay horto header baan tagnay. qaabkan ugu yeedhayno waa qaabkaas oo kale. u fiirso halkan waxay ahayd css kadib waxuu yeedhaya style waxaanu ku darnay eco language dir oo maxay raacinayno minus. halkaasuu bedelayaa hadduu yahay carabi wuxuu ka dhigayaa maxay right to left ayuu ka dhigayaa. hadduu yahay ingiriisina wuxuu ka left to right. halkaa intaa markuu qoraalkaa ku qoro waxaa inoo soo baxaya markaa filekii kale inoo soo qaaday halkan ka soo baxaya. haddii qoraalkeenan ama iminka filekeenan aan idhaahno website-keeni ama pagekeeni waa kan. haddii haddaan idhaahno waxaad inoo sameysaa view page source
u fiirso halkan wuxuu inoo sameeyey assist css left to right minus style left to right minus navi. haddii aan bedelno hagan waan ka bedeli karaynaa la yidhaahdo hadhow dynamic baan ka dhigayna lakin saan kasii bixinayna int initialize-ka waxaad noo soo include garaysaa require garaysaa English halkaas in ar ka dhigaynaa. view page source keeni aynu kusoo celinaynaa isaga laftigiisii soo refresh gare u fiirso iminka fileka muxuu noqday left to right kii horena wuxuu ahaa kan wuxuu noqday left right to left kii dambe horena wuxuu ahaa left to right. haddii aan soo refresh garayno page-kanan kale waxaad arkaysaa inuu gebigiisaba dhinaciisa ka bedelay xaggana wuxuu yimi carabi buu ka dhigay iminka website-ka gebigiisiiba ama page-kiiba wuxuu ka dhigay carabi buu ka dhigay carabi ayuu nooga dhigay. carabigaas markaa wuxuu inoo saamaxayaa kaasoo yargaabino carabigaas markaa wuxuu inoo saamaxayaa u fiirso imika carabi buu ka dhigay gebigiisiiba page-kii wuu rogay saasoo kale ka dhignay inagoon wax kale iska lifin luqado kale waad kusoo dari karaysaa ingiriisi carabi soomaali faransiis talyaani chinese jaban waxaad doodba kusoo dari karaysaa. marka qaabkaas oo kale ayuu isu bedelayaa halkan aan kasoo bedelnay iminka dynamic maaha inagaa kolba bedbedelayna xaggan waxaan ka dhignay language englishka soo refresh garee haddaba markaa markiiba saasoo kale isu bedelay ingiriis imika isu bedelay. marka filekana waan kuusoo upload garaynayaa insha allahu tacaala marka waad isku dayin fileka gebigiisaba waan kuusoo upload garaynaya descriptionka youtube-ka descriptionkiisa ayaan linka kugu soo dhigaynaa insha allahu tacaala halkaa kasoo download garayso kadibna u fiirso qaabkan u sameynay wax uga bedbedelnay header hadday tahay footerka oo kale waxbaanu ka bedelnay aga waxaan kusoo darnay language u fiirso b waxaan kusoo darnay arreygeenii qeybta waliba design baan sameynay kadibna wuxuu inoo soo qabanayaa haddii ingiriis uu yahay ama carabi yahay saasoo kale aan ku sameynaynaa. isku day ceeb maaha haddii dhib kugu noqotona soo comment garee waxaad tiraa dhib igu noqoto waa fahmi kari waayey aan kugu celina casharka insha allahu tacaala baaraka allahu fiikum barna sida idin sameyno u sameysaan laakiin waxaan jeclay mar walba intu isku daydaan oo dhib male mar khalad laba khalad saddex khalad ceeb maaha taasaa lagu bartaa saasi ka fadaysi wacan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.